Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Sahra Sirat. Waa walaashiin Muna iyo Caawo. Masha Allah tabaarakallah. Caawo waxaan jeclaystay inaan idinla share gareeyo faa'iidooyinka ama munaafacaadka uu leeyahay khalka. Haddaba khalka masha Allah sidaa wada ogtihiinba wuxuu ka mid yahay waxyaabihii ama cuntooyinkii laga isticmaali jiray guriga rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo sunnada ah ayuu ka mid yahay. Khalka faa'iidooyinka uu leeyahay ayaa waxaa ka mid ah isagoo faa'iidooyin badan leh, laakiin waxaa ka mid ah in uu hoos u dhigo blood sugar levelka, sokorowga in uu hoos u dhigo qofka sokorta leh, in uu mataqaanaa uu hoos u dhigo. Waxaa kaleeto oo uu khalku uu leeyahay oo isagana loo isticmaalaa in uu isagana dhiigkarkana mataqaanaa u dejiyo oo dhiigkarkana uu hoos u dhigo. Khalka wuxuu kor u qaadaa metabolismka oo waxaa loo isticmaalaa in mataqaanaa qofku uu ku dhimo cayilkiisa in uu ku dhimo. Waxaa kale oo khalka uu faa'iidooyin waaweyn uu u leeyahay cholesterolka oo ah subaga gala dhiigga gala. Iyo waxaa kaleeto oo loo isticmaalaa in uu ilaaliyo kansarka cellska oo kansarka inuu ilaaliyo oo uu mataqaanaa uu u fiican yahay isagana in uu wax ka qabto in uu koro ama uu dhasho kansarka. Waxyaabahaas oo dhan ayaa waxaa loo isticmaalaa khalka oo uu u fiican yahay. Khalka haddaba waxa uu leeyahay vitamins iyo minerals u qaas ah ayuu leeyahay masha Allah. Waxaa laga heli karaa vitaminska ay ka midka yihiin vitamin B1, B2, B6, folate acid waa laga helaa, potassium baa laga helaa. Waxaa kale oo laga helaa vitamin C, waxaa laga helaa calcium, waxaa laga helaa sodium, waxaa laga helaa iron iyo waxaa laga helaa magnesium. Intaas oo vitamins iyo minerals ah oo kala duwan ayuu leeyahay khalka. Siyaabo kala duwan waa loo isticmaali karaa. Waa loo isticmaali karaa karinta cuntada sida hilibka iyo waxyaabaha la midka ah, suugada iyo waxyaabahaas in lagu darsado. Waa loo isticmaali karaa salarka in mataqaanaa qudaarta inta la jarjarto dusha looga darsado. Waa loo isticmaali karaa cabitaan ahaan haddii qofka qasadkiisu ay tahay in uu dhimo cayilkiisa. Wuxuu soo qaadan karaa qaado ah khalkii ah iyo koob biyo ah, wax yar oo ah qorfaha shiidan ah ayuu isku darsan karaa, taas oo kor u qaadaysa metabolismkiisa oo mataqaanaa si uu qofkaas ay ugu sahlanaato in uu cuntadii uu cunay uu dhaqso burburiyo awood u siiso in uu dhaqso burburiyo. Khalka munaafacaadkaas oo dhan ayuu leeyahay. Waxaa kaleeto oo khalka oo isagana munaafacaad uu leeyahay in uu kor u qaado immune systemka in uu kor u qaado. Waxaa kaleeto oo khalka laga helaa ama loo isticmaalaa skinka maqaarka ayaa loo isticmaalaa isagoo markaas loogu isticmaalayo maqaarka in uu ka ilaaliyo nabraha ama acne-ga maqaarka kasoo baxaya wajiga qofka kasoo baxayo. Waxaa kaleeto oo uu maqaarka uu u sameeyaa wuxuu ka dhigaa in uu jilciyo ama in uu ka ilaaliyo in uu maqaarkii laalaabmo gacmaha ama wajiga midku doonaba ha ahaadee. Oo wuxuu u shaqeeyaa sida anti aging-ka in uu ka hortago in uu maqaarkii duqoobo oo uu laablaabmo ama mataqaanaa ay galaan laablaab ama jeexjeexan ay galaan ama isku soo noqnoqdo ayuu asagana mataqaanaa caawiyaa oo faa'iidadaas oo kalena uu leeyahay masha Allah. Waana shay mataqaanaa sunno ah axaadiistii nabiga sallallahu alayhi wasallamna ay ku soo urureen masha Allah tabaarakallah.
ilaahay subxaanahu watacaala aniga iyo adigaba hanaga dhigo kuwo mataqaanaa ka faa'iideysta. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.